mahadsanid halka daawadayaal nagala socotaan waa Universal TV studiyahan ku leenahay magaalada Hargeysa warkii caalamka ayaa si toos ah idiga soo gudbinaya jaariyada ka soo jeeda shabeellada dhexe ee ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay kulan isugu yimaadeen waxa ay ku cambaareeyeen 8 dhakhaatiir oo dhamaadkii bishii hore aynu soo dhaafnay lagu dilay deegaan ka tirsan shabeellada dhexe wariyahayaga Cabdikariin Mursal ayaa warkaasi inooga soo diray Koonfur Afrika kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ee ka soo jeeda deegaanada shabeellada dhexe ayaa cambaareeyay dilka dhakhaatiir bishii May lagu laayay deegaanka Gololey ee ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaan isugu nimid inaan meeshan magaalada Cape Town ee dalka South Africa ka jeedino baaq ku aadan dhibaatadii ka dhacday degmada Gololey 28kii bishii May ee sanadkan maalmo ka hor oo lagu dilay 8 qof oo joogtay ka shaqeynaysa MCH meesha ku yaalo waxaan leenahay in lillahi wa inna ilaihi raaji'uun samri iman Allah naga wada siiyo nimanka bilmigeetada ah ee u bixi dalka u soo baxay ah ee la rabay inay maanta iftiinkii ay soo nuuriyaan in maanta saa loogu sifaaday aad iyo aad aan ugu xunnahay dadkaas horta Allah u naxariisto eelkana sabr Allah ka siiyo ahlu jinna Allah ka dhigo dadka dulumka u dilo munaafiqiintaana Ilaahay waa ogyahay waana la qaba doonaa haddii ay dawladdu qabato khayr waaye waa sidii laga rabay haddii dawladdu qabanna Ilaahay baa qaba doona ama ba xaq waa dilaacahay xaq qaba doona waxaan ka tacsiideynayaa 8 wiil ee dhalinyarada ahayd ee lagu dilay si arxam daraa loogu gurigooda inta laga soo baxay lagu dilay ayagoo waliba dhaqaatiir ah goob caafimaad ka shaqeynayay 8 wiil al-shabaab ma dilin dawladana ma dilin yaa dilay dawladan ka sugayna jawaabteeda waxaan cambaaraynaynaa falalkaas isdaba joogga ah ee foosha xun ee dhacay kuwa qaraxa loo geystay oo waxba dhibaato aan geysan iyo kuwii inta la soo qabqabtay la xasuuqay ee meydkooda hal meel la isugu geeyay wajiga laga wada toogtay aad baan uga naxnay jaaliyada ayaa laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in cadaaladda la horkeeno cidii ka dambeysay dilka dhakhaatiirta lagu laayay deegaanka Gololey oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaana si mugla uga codsanaynaa dhammaan hay'adaha ay qusayso ay ugu horeyso dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo waliba labada aqal ee golaha baarlamaanka in arintaas ay gudi xaqiiqo raadi aan u diraan dadkii ka dambeeyayna in cadaaladda la horkeeno malihin hebel Axmed iyo hebel Axmed iyo dowlad gobol Axmed iyo dowlad qaramada Axmed malihin oo warkeenu ma ahan laakiin waxaan rabnaa in cadaalad la helo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha sharafta leh madaxweynaha sharafta leh Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadkayna si degdeg ah inay ugu jawaabaan cid disha ay keenaan waxaan aaminaynaa haddii Allah ku idmaayo aan ku sabraynaa haddii cadaalad la keeno in aan xaq darro dambe dhicin haddii Allah waxaan rabnaa dawladda oo ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya iyo haddii ay mid gobolka taaba in la helo dadkaas dadkii laayay waxaan isugu nimid intaas ay ahaayeen 8 aqoonyahan ayaa bishii May lagu dilay deegaanka Gololey oo ka tirsan Shabeellada Dhexe xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo Cabdikariin Mursal telefishinka caalamiga Universal Cape Town wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta